nin Soomaali ah ayaa tagay dalka Yemen waxa uuna shaqo ka helay shirkad lagu magacaabo Rabiic waxa uuna ka mid noqday isticmaalayaasha ka shaqeeya shirkadaasi. Maalin kasta waxaa la geeyaa bakhaar ay iridda hore kaga qoran tahay Rabiic, halkaas ayuuna ka shaqayn jiray. Sida caadiga ah inta badan qofka Soomaaliga ah waxa uu dhaqan ah in uu ku hayso marka uu qabanayo hawl adag sida marka uu xoolaha biyaha siinayo ama shaqo xamaali ah uu qabanayo. Heestaasi ayaa noqota mid ka turjumaysa nooca hawsha la qabanayo. Ninka Soomaaliga ah ee ka shaqaynaya bakhaarka shirkadda Rabiic waxa uu samaystay hees yar oo Carabi ah oo ku luuqeynaya marka shaqada uu qabanayo. Heestan ayaa waxay tahay sida tan: laa yastariixu ilaa Rabiic, oo ah jumlo Carab ah macno ahaanna ay noqonayso markii Soomaali laga dhigo nasiino iyo raaxo ma jirto marka laga reebo Rabiic. Maalin maalmaha ka mid ah asigoo shaqadii ku jiro ninkii Soomaaliga ahaa oo xamaalanaya heestiina ku luuqeynaya ayaa waxaa yimid ninkii Rabiic la dhihi jiray oo gaari lagu wado. Waxa uu arkay ninkan Soomaaliga ah oo ku luuqeynaya heesta Rabiic oo khaaska ah. Rabiic ayaa dalbaday in ninkan Soomaaliga ah maalin loo casuumo. ninkii Soomaaliga ahaa ayaa arrinkii loo sheegay waana aqbalay casuumaddii Rabiic u fidiyay. Balse maxaa dhacay markii uu la kulmay ninkii Soomaaliga ahaa Rabiic? Ninkii Soomaaliga ahaa ayaa la geeyay guri dabaq ah oo aad u dheer. Gurigii meesha ugu sarreysa markii la gaaray ayuu la kulmay ninkii Soomaaliga ahaa jawi aad u qurux badan iyo cunto nooc walba leh oo la diyaariyay. Cuntadii ayaa ninkii Soomaaliga ahaa lagu soo dhaweeyay. Markii cuntadii inta uu cuni karay cunay ayuu dalbaday in uu la kulmo marka hore Rabiic. Rabiic ayaa u yimid ninkii Soomaaliga ahaa. Hadda ogow, Rabiic waa nin waayeel ah. Ninkii Soomaaliga ahaa ayaa mar kale ku celiyay aaway Rabiic. Waxaa u jawaabay ninkii odayga ahaa waxa uuna dhahay, Rabiic waa aniga kula hadlayo. Ninkii Soomaaliga ahaa ayaa aamini waayay inuu Rabiic yahay ninka ka muuqato duqnimada iyo xaaladda uu ku sugan yahay oo ahayd mid aan la suuraysan karin. Rabiic ayaa u sheegay ninkii Soomaaliga ahaa in waxa hayo aysan ahayn duqnimo iyo waayeelnimo balse ay yihiin xanuun. Rabiic xanuunka hayo waxa weeye in uu ka maqan yahay oo uusan kala garanayn waxa uu cunayo nooca dhadhan ay leeyihiin. Rabiic ayaa sheegay in uu cuno oo keliya mushaari, halka uu ku dhahay ninkii Soomaaliga ahaa, adigu waxaad cunaysaa nooc walba oo cunto ah halka anigana aan cuno keliya mushaaridaasi. Waxa uuna Rabiic ka dalbaday ninkii Soomaaliga ahaa inuu qaato hantidiisii oo idil, asigana uu ku soo wareejiyo keliya dhadhankiisa ama dareenka dhadhanka. Dareenka dhadhanka ma ahan waxa uu qof kale qofka ku wareejin karo, waa nin uu Rabbi bixiyo. Ninkii Soomaaliga ahaa oo yaaban ayaa ku laabtay shaqadiisa. Waxa uuna bilaabay inuu heestii uu ku luuqeynayay wax ka bedelo. Waxa uuna markaa dhahay, laa yastariixu xataa Rabiic, oo ah raaxo ma jirto xataa Rabiic. Ujeedka qisadan aan u soo qaadanay ayaa ah in qof kasta isleh qof kale uu ka nolol fiican yahay, laga yaabo in qofkaasi uu nolol adag ku jiro, sidoo kalena qof walba uu ku qanco inta yar ee uu haysto.